والد دخنت نوع لهاي والد دخنت معناه كسوقات أنا أبتجي هاي أنا أقول فدياتني أبتي وأكو سلامي أنت كاشومي هذا المية فديستي كتاب وأنا آخر السنة يا دبا وكوشوي دبا كوشوي إسلام مركي لوك تكاكبت وكوشوي أبتيو هو يدي ولا الكيو كيدو ويابتي باي يا حتى أبتيو مردم بهي علمي أبتي رالي هويها وشيء يا أنكو ده أخرسكي أنجل بو أراك تقول كذي وافديستي وأبتي وأساس لو بشلوه معنا والد دخلت الله معنا ما لا فهم أيوه لكن قولي يودمينه يا خرابة وكسر نقدي نكان بكيري ترموز خادو جلاس ما نولا كله رفعنا وافي يوم ها مركي له صباح ولا أب على رالي هذا أروح بي دبا أبتي ولا وشوي واكو عنقي واي أبتي له واي حمان كما حاسري وحبك صوت ظاهرة هيك عملوا إسكر هذين أو قبل قالوا أبتي لي براوي عملوا مجرى وركا لك الحمد لله تاسع قدر المياه والد دخلتها ولا بسيها خفكا وبركا أركيست وحلالها إن كان ومعلم جامعي واي كون أرديا ميل وفردا ودرس السينا ترموز بوس كان كاسيرا جبا أبتنا لا ولا الكيد أبتيو ديك باكا بحاي أبتي أنت باك ديك يسا أكله واكس حمانا كما واكس كو كلا ناس واكس دور نولت عنويا دورس كسريف لا شيخ جاوا في خدم ولا دخلت وين تروح يا ما اسمع لكن ما كي مسوى يا هرت والد دخلت ما خشادي بوفس ما خشادي بوفس ما غلي ها بوفس كا والد دخلت اسكو عمر الاول لكن والد دخلت بوفس waxay kaga duwan tahay waa ka farxad badan tahay ها waa ka farxad badan بوفس waxa waa fikirkiisu waa qaf kastaan لكن أبتي إيورن أبتي وكل دبنا بو مدعو كاغتي وافد يستدن أبتي حالي معك وعشاسي جلاتي دي هو يمكوسا وقدي وكل أدوك السوية ويلكي واك ولا شعر شوي كي كل أذير كل واك حق لقى العلوة قبل دي وحيلا بدن قلا انت لو سعدا لك الحمد لله هذا واحد مودا الحمد لله إلهي نحرستيسي ولا مودا الحمد لله wax maanta oo halaawayna ma bajiraanba waxaan anaga iska haleeninay ma banaga halaabinba anaka la iska haleenay anaka la hadin insha Allah anaka la toosisinayna anaka la istoosinayna anaka la way macnaa wax oo halaawayba hadda salaamow ma jiraan khaatimadana ilaahay anoo soobiyo ilaahay idinkiis dambigeen iyo dambiga waalidkeenana Allah cafiyo dalkana Allah noo qurxiyo maal inkastoo markii aanad dhakhtar ahayn waxaan haddana aad ku tilmaantay waalida dhaqanta ama buufiska maxaa ugu cambad oran lahayd dagaaladii iyo waqtigii adkaayee maaragtay la soo maray cabdisalaam horta su-aal muhiim waaye kan hadda ay weydisay nolosha intii aan ka naxayno iyo intii aan ka naxayninbe waxa waaye kuma fiicno waxyaabihii aan soo marnay dal iyo dad inay soo maraan laakiin dal iyo dad uu allah subxaanahu wa tacaala uu imtixaamayo waxay soo mari lahaayeen annaga waa soo marnay waxaa lanooga baahan yahay waxaan aragnay cifri qaadasho inay noo noqdaan duruus inay noo noqdaan intii ka xunna inaan ka marno intii ka nadiif ah oo laga hadli karo inaan shacabkeena u gudbino taasaa aniga ila quman aad iyo aad baad umahadsantahay markii waa hagaagintaasna waxaa ku dhan barnaamijkeeni Hereer iyo Hargeysa toddobaadkan oo idinkala socoteen telefishanka Universal barnaamijkani waxa uu idinka imanayay magaalada Hargeysa ee barnaamijkan mid la mid ah intaynu ku kulmayno haddii aan la yiraahdo waa Cabdisalaan Hereeri oo idinku dhaafaya nabadgelyo